waxa uu maanta TV-ga ETN la dhaxmaray kamarada dadweynaha ku nool magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska kuwaas oo cabirayay shucuurtooda ku aadan qaraxii naxdinta lahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho halkaas ay ku dhinteen dad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo ah wasiiro dhakhaatiir wariyaal macallimiin iyo arday halkaas oo ku geeriyooday wasiirkii tacliinta sare hidaha iyo dhaqanka Professor Ibrahim Xasan Cadow waxa kaloo halkaasna ku geeriyooday wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Waayeel waxa kaloo sidaas kale ku geeriyooday wasiirada caafimaadka Qamar Aadan Cali adarse waragta qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho shalayto wallahi qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa wax fal xun dhibaato ku dhacday wadankeena iyo dadkeena iyo dalkeena waxaan ku magac dheeraa Qatato waxaan deganaa magaalada Birmingham qataad sidoo waqti qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho wax laga naxaway oo aan lahayn bini'aadnimada ku jirin islaamnimada aan ku jirin aan lahayn qawaaniinta caalamka ay kamid tahay واي بروفيسور ninka aad u wanaagtiin waa Professor Cadow waa nin mutacallim u yimid wadankiisa ku soo laabtay inuu ummadda badbaadiyo naftiisa u horay gabadhan waxa waa Qamar waa taqaanin waa gabar mutacallimad ah aqoon leh nafteeda u hortay in ay u timaado wadankaas dadkii loo macnaha tababaray arintaas inay sameeyaan oo wali dhalinyaro iyo wax kasta isugu jiraan علماء كجيران أو أرنت أدلالي أو مالكودي حولودي وقتكودي وهري إن لقول لا يمش عاد بيقفل حنتان أنا أقول أمسنا قفك بالعادن كحدي إن ده لقى ريده لقى حنا لقى ترى لبذا كعمود لبذا لقى جوي يعني محو أود عينه قبض وأود دريم كرتان محو أود عينه قبضه وحبا ما قبان كره ويان سؤاشي جواب تيدنا بركة وحن لا هاي دد كديله هيا دد كدقاتير تا وحبرتي وحويان إنها ودن كويان indhaha wadanka waad ka rideene gacmihina waad ka gooyseen dhagihina waad tirteen annagana waana niyad jibiseen ilaahay ka cabsada oo ummadda iska daaya ayaan dhihi lahaa wixii qaraxaas iyo waxa la midka maalin walba ku sameeya magaala madaxda wadanka oo ahayd wadnaheena iyo maskaxdeena annagana waana niyad jibiseen naga daaya ayaan ugu baaqi lahaa kuwaas ayaga ah oo maalin kasta sameeya dhibaatadaas وعدو ششية وحسن نو أديكسيو هايو ما أهن أمد نبي محمد أما أمد نحيس ما أهن ودن كينا وحلو سعدا سيدان دريم كرو إن لقب صدو سلطان سعيد بالي لها وحنا قدومي كحيين كحزب كلمية يوكي هدي أنا رنتا سوق هذا أنا جو عاديات أرن لقى حماده ويرتي شعب سومالي وصار الله يني مالي والبا وأرن لقى حماده وحنا تعسود دريا دمان تدكي أي كجوريودن تدكاس إهلودي قرابودي يا لما شعبك Soomaaliyeed walaalahayga Soomaaliyeed aad iyo aad baan uga xunnahay waxa ka socda Muqdisho وعبد الناصر فارح استديوها ETN magaalada Birmingham